isboogsi isbaaradu ay maanay dharka noo soo qabo. وينك؟ ma waxaad rabtaa walaal inaad nugu qancisid inaad ka mid tahay qolada midigta oo aad nala jirtidna ma waxaad garka u daysa weyse walaal si aan u dareenno adig iyo gaalka farqiga idin dhexeeya. الله وكيل يأهي الله واحد قرأ مسيني أدي أوين هذا حتى واحد كم فعلين لكن إلهي أيام هذا سكالي يا أود يا وين أسمنات فضلك على درتيس هذا وان أبورتي وحان استعماله مك داود قرك وقت كدبنا وحان يلندونا قرك أو كالي بس وقت إسي duliyo bis jooji waxba ha tartarinay dareenkayga iyo maskaxdayda wixii ii sheegaya inaad adiga u dhaqmaysid siduu kuwa qadariya soona dhaweeyana kana hadlan isla simida ragga iyo dumarka cadaaladda iyo xurriyadda ilaahay ayaan ka magan galay baktiyo aamus. bal eeg ninkan fiiri muuqaalkiisa indhahaga ku arag bal fiiri ninkan dhowrsan ee sharafta leh. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. fiiri sida iimaanku u qurux badan yahay quruxdiisa arag fiiri taqwadiisa iyo xalaal quudashadiisa. dareenkayga iyo aqligayga waxay ii sheegaya inaad adiga dhalatay qolada bidixda oo aadna ka mid tahay. ilaahay weyn ayaan ku dhaartay aniga maalintii hooyaday dhashay waxaan ka mid ahaa qolada midigta aniga waan necbahay qolada bidixda aslan aniga waxaan ilaahay ka baryaa in la dhiso dowlad weyn oo islaami ah sida dowladani laakiin wax walba doonista ilaahay ku dhacaan. haddeertaan waxaa kaa beerinaa shay kasta iyo xaajo kasta. sidee ma waxaad baaraysaan dhiigayga sababna indhahaaga waxba kuma aragtidee kaalay walaal wada oo baara. السلام عليكم. هلا برجيكم البصلات محمد رحت. fiiri muuqaalkiisa fiiri dadka nuucan oo kale ah dadkan waxay noo celinayaan boqolaal sano ka hor waana dadka noo diidan inaan dhisano dowlad islaami ah. kuwaani waa kuwa lunsan walaalkii qaaliga ahaa waxaan ku hanuuninaynaa wadada toosan ee wanaagsan waxaan u furaynaa indhahooda wadada hidaayada iyo taqwada iyo wanaaga. waxba ka baqin walaal walaalaha gudaha ku jiro ayaa indhahooda iyo aragooda u furi doona iyo ashyaa kale ha baqin walaal. walaal meeshaad ka celinayd miyaad ku dareysaa ka war hadduu annaga nagu xanaaqo. adiga maxaa kaa galay gabar yahay waxaaba yaab leh sidaa afkaaga u furays iyo hadalka aad ku hadlaysidba horta yaa ku ogolaaday inaa hadashid. بسيطة يا أخي basiid waa walaal بسيطة. basiid iska daa waa dumare way iska qalbi jilcayihiin iska daa. wallaahi inaysan basiid ahayn bal waa arrin weyn miyaadan ogayn inuu codkeedu yahay cawro sidee ugu ogolaa karnaa inay hadasho. beri waxa ay naga dalban doontaa inay akhriso kutub beri kadibna waxa ay dhegaysan doontaa heesaha ilaahay ayaan ka magan galnee kadibna waxa ay turjumi doontaa musalsal turki oo cod lagu fasiray ilaahay baa og waxa ay samayn doontaa intaas kadib ma aha mid fudud oo fudud. ma haysaa karbaash ama ul caadi ah waxaa igu waajib ah in aan ciqaabo tumane ugu yaraan 85 jeedal. ألدع. لا يا ma أخي istaash halaas الأمر لا oo يستاهل. jaala. istaahishe aamus doqon gardaystaa tahee way istaahishaa waxa ay istaahishaa intaas iyo in la mid ah. waa kuma kabiirkaaga yaah waa kuma kabiirkaaga abulbaraa ama sayfu shaam ii jawaab. lacnad korkaaga ahaatee idinka iyo fududaysigiina ayaana soo gaarsiiya meesha maanta marayno waxaana noo diiday inaan dhisano dowladeena wanaagsan ee islaamka ah. jooji walaal qaata xorriyaddiina mashaakilkiina guriga ku xalista. maya kun jeer maya mushkiladeyda ma ahaanin isbaarada aan taaganahay mushkiladeyda waxa ay noqotay mid adiga kula jirto idinka iyo fududaysigiina arrimaha waaweyn ayaana soo gaarsiiyey maanta meesha aan marayno.
ilaahan kugu dharshay qaado xurriyadaada mushaakilkaagana guriga ku xaliso maalintana kuu wanaagsanaato ma tagaayo laakiin waan ku hor istaagsanaan doonaa hor istaag waanu kuu soo laaban doonaa mar kale si aan kuu xisaabiyo xisaab culus